ciyaaryahanka kooxda AC Milan Daniel Maldini ayaa sameeyay taariikh cusub kubadda cagta dalka Talyaaniga kadib markii uu gool ka dhaliyay naadiga Spezia ciyaar ka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga. Mid ka mid ah magacyada ugu caansan kubadda cagta dalka Talyaaniga waa magaca Maldini, kaas oo shalay galabtii dib ugu soo laabtay masraxa kubadda cagta dalka Talyaaniga markii ciyaaryahanka Daniel Maldini uu gool dhaliyay ciyaar AC Milan 2-1 kaga adkaatay naadiga Spezia. Daniel Maldini oo 19 jir ah ayaa kulankii ugu horeysay horyaalka Talyaaniga xilaareedkan ciyaaray isagoo raacay wadadii ay hore u mareen aabihiisa iyo awowgiisa ama abkowgiisa ee kala Paolo Maldini iyo Giuseppe Maldini, kuwaas oo taariikh iyo magacba ka sameeyay kubadda cagta garan kooxda AC Milan. Ciyaaryahankaasi ayaa ka tallaabay jidgooyo hortiile taas oo ah inuu gool ka dhaliyo horyaalka heer koobaad ee dalka Talyaaniga isagoo daqiiqadii 48 ama 3 daqiiqo kadib bilowga ciyaarta qaybta labaad uu kubad dhaliyay kadib markii ciyaaryahan Pierre Kalulu oo u dhashay dalka Faransiiska oo 21 jir ah daafaca dambe kaga ciyaaray AC Milan kubad uu soo laaday uu madax xoogan ku teestay ama ku darbeeyay taas oo heed kubad xoogan oo uu qaban kari waayay goolahayaha kooxda Spezia Jordan Zod kadibna u dirtay kooxda AC Milan inay hoggaanka u qabato horyaalka dalka Talyaaniga. Tababare Pioli ayaa u suurageliyay Daniel Maldini inuu kulankan ku soo bilaawdo iyadoo kooxda AC Milan 4 kulan ay ciyaartay 10 maalmood gudahood. Wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horeysay taariikhda 3 jiil oo isdhalay ay kubadda cagta dalka Talyaaniga gool ka dhaliyaan. Magaca Maldini oo gool ka dhaliya waxa ugu dambeysay Paolo Maldini oo sanadii 2008 gool ka dhashay iyo aabihiisa Giuseppe oo isna 61 gool ka dhashay. Daniel Maldini ayaa goolka u dhaliyay ee Serie A dalka Talyaaniga uu ka dhaliyay waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay muddo 13 sano 179 maalmood kadib markaas oo aabihiisa uu dhaliyay ninka lagu magacaabo Paolo Maldini ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Talyaaniga oo AC Milan ay la ciyaaraysay Atalanta sanadii 2008. sidoo kale waxay ka dhigan tahay goolkan uu dhaliyay ciyaaryahan Daniel Maldini in laga joogo 60 sano iyo 22 maalmood goolkii ugu dambeysay ee awowgiisa ama abkowgiisa Giuseppe Maldini uu ka dhaliyay Serie A ciyaar AC Milan ay la ciyaaraysay Catania sanadii 1961. kooxda AC Milan oo gool ibal ciyaarta ku hogaaminaysay ilaa daqiiqadii 8 ayaa kooxda Spezia ee la timid gool bareeja. goolkaasna waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka gaaban ee garabka ka ciyaara ee reer Talyaani ee 25 sano jirka ah Daniel Verdi, laakiin goolkiisa oo yimid daqiiqadii 8 ayaa 6 daqiiqo kadib waxa kooxda AC Milan goolkii labaad oo ahaa kii natiijada go'aamiyay u dhaliyay ciyaaryahanka Brahim Diaz ee reer Spain isla markaasna 4 daqiiqo ciyaarta ka harsan tahay dhaliyay. kooxda Stefano Pioli ee AC Milan ayaa haatan hoggaanka horyaalka dalka Talyaaniga ku heeso 16 dhibcood 6 kulan ee ugu horeysay ay Serie A dalka Talyaaniga ka ciyaartay, waxaana jirta ciyaar u harsan kooxda Napoli oo haatan 15 dhibcood leh. waxay Napoli ciyaaraysaa Axadda kooxda Cagliari. waxa ay buuxiyay shucuur maanta, waxa lahaa dareen xoogan laakiin waa deganaa. nasiib wanaag waxaan helnay 3 dhibcood inkastoo ay ahayd ciyaar adag in la gaaro ama la helo 3 dhibcood. tababaraha ayaa shalay ii sheegay inaan ciyaari doono laakiin waxaa dareemay raaxo. way adag tahay in la helo boos aad ka ciyaarayso horyaalka Talyaaniga isla markaana way adag tahay inaad fursado abuurto. qaybtii labaad waxaa jirta fursado badan. aabahayga Paolo iyo awowgay ama abkowgay Giuseppe waxay ka ciyaari jireen daafaca waxayna la gaareen guulo waaweyn naadiga AC Milan. anigana sidaas oo kale ayaan rajeynaya ayuu yiri Daniel Maldini oo la hadlay warbaahinta DAZN kadib ciyaarta markay dhamaatay. Paolo Maldini oo ah aabaha dhalay wiilkan Daniel Maldini ayaa kooxda AC Milan u ciyaarayay 25 sanadood intii u dhaxaysay 1984 ilaa 2009 isagoo u saftay in ka badan 900 oo kulan. waxaana Paolo Maldini oo haatan ah agaasimaha ciyaaraha kooxda AC Milan uu u dhaliyay naadigiisa intii uu la joogay 25 sanadood 33 gool. Paolo Maldini daaficii hore xulka Talyaaniga kooxda AC Milan ayaa intii uu joogay naadigiisa Milano waxa uu ku guuleystay 21 koob guud ahaan 25 sano ee kooxdaasi uu la joogay AC Milan, waxaana ka mid ah 5 koob oo Champions League ah iyo 7 jeer oo horyaalka Talyaaniga uu la qaaday. ciyaaryahan Paolo Maldini
ayaa yimid kooxda AC Milan xilciyaareedkii 1984-1985 waxaana uu noqday ciyaaryahan si toos ah ugu ciyaar kooxdaasi isagoo da'diisa markaasi ay ahayd 17 sanadood waxaana uu ka garab ciyaaray daaficii hore ee kooxda AC Milan Franco Baresi iyo sidoo kale ciyaaryahankii kale ee Tassotti Maldini ayaa nabarkii saddexaad waxa uu noqday mid howlgab ah laakiin waxaa jirta shuruud kaliya lagu qaadan karo taas oo ah haddii ciyaaryahanada labada ah ee u dhalay Paolo Maldini ee kala Cristiano iyo ciyaaryahankan taariikhda dhiga ee Daniela ay dalbadaan nabarkaasi Paolo Maldini ayaa ciyaaraha isaga fariistay isagoo 41 sano jir ah sidoo kale Daniela Maldini awoowihiisa ama koogiisa Jesser Maldini ayaa 12 sanadood u soo ciyaaray kooxda Rossoneri ama AC Milan intii u dhaxeysay sanadihii 1954 ilaa 1966 waxaana uu ciyaaray in ka badan 400 oo kulan dhammaan tartamada isagoo kula guuleystay 4 jeer horyaalka Talyaaniga iyo koobkii Champions League ugu horeeyay ee kooxda AC Milan ama koox Talyaani ay ku guuleysto sanadii 1963 kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay ayaa waxa uu noqday Jesser Maldini caawiye tababar ama tababar xigeen kooxda AC Milan isagoo u ahaa kaaliye ama caawiye Nier Rocco laakiin sanadii 1972 ayaa kooxda AC Milan waxay tababar ka dhigtay Jesser Maldini isagoo muddo 2 sanadood ah uu u ahaa tababare waxa uu isaga tagay sanadii 1974 kadibna waxa uu soo leeliyay kooxo kale isagoo mar kale ku soo laabtay naadiga AC Milan sanadii 2001 oo si ku meel gaar ah loogu dhiibay